Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada koorskeena farsamada baabuurta. Waxaanu ku guda jirnay cutubkeena saddexaad. Waxaanu bilaabanaa casharkeena labaad. Waxaan uga hadli doonaa casharkeena labaad noocyada matoorka. Waxaan soo jeedin doonaa anigoo ah Maxamed Xirsi Faarax. Wixii jawaab celin waxaad noogu soo celin kartaan emailka shaashadayna ka muuqda. Casharkeena waxaa kala socoteen mareegtada Somalism Online Academy. noocyada matoorka waxa uu qaybsamaa laba qaybood oo kala ah matoor ku shaqeeya petrol iyo matoor ku shaqeeya nafta ama diesel. Matooradu waxay u samaysan yihiin qaabka ay ugu jiraan bastomadu ayagoo ah saddex qaab. Waa qaababka ugu waaweyn oo ugu jiraan bastomada ugu muhiimsan. Inay ugu jiraan qaab taag ah oo sida qaabka aan ka wada garanaysaan. Inay u samaysan yihiin qaab jiif ah, inay jiif ugu jiraan ama dhinac ama inay ugu jiraan qaab fi ah. Waa kan qaabka fi ah waa qaabkan oo kale bastomada xagan bastoma ku jira, xagan kalena bastoma ku jira. Oo bastomadii xaga ka muuqda. Waxaan kor waa testato iyo testato kale. Marka qaabka fi ugu jiraan bastomadu saan u shaqeynayaan matoorka. Taas oo shaqeynayaan. Inay ugu jiraan qaab dhinac ugu jiraan kuwan bastomadii waa kuwan afar basto. Inay ugu jiraan qaab taag ah qaabka normalka ah oo wada garanaysaan caanka ah. Noocyada matoorka baa ku guda jirnaa. Dhammaan matooradu waxay u shaqeeyaan si isku mid ah marka laga eego qaabka gubashada shidaalka, laakiin waxay ku kala duwan yihiin heerka cadaadiska shidaalka iyo heerkulka iyo qaabka gubashadu u dhacayso bay ku kala duwan yihiin. Bastomada oo dhan waxay qabtaan afar shaqo isku mid sida hore u soo sharaxnay. Qaadasho shidaal inay qaadanayaan iyo hawo isku jira, cadaadis inay sameynayaan, gubasho inay sameynayaan iyo qashin saar. Afartaas shaqo ay qabtaan hore u soo sharaxnay. Afartaas shaqona waa afar shaqo wareegta ah oo ay baston kasta markiisa shaqo qabanay. Matoorka petrolka haddaan ku hormarno. Matoorkan Britishku waxay ugu yeeraan petrol engine halka Mareykanku ay ugu yeeraan gasoline engine. Qaraxa ama gubashada shidaalka waxaa sameeya balaagyaa sameeya. Yani markii petrolka iyo hawada isku jira kor loo soo cadaadiyo dab waxa ku dhufanaya balaagha dab ku siinaya kadib qaraxa gas ka dhacaya. Matoorkan hawada iyo shidaalku waxay isku qasmaan gubashada ka hor inta gubashadu dhicin ka hor ba isku qasmaan. Matoorka naftada iyo hawadu waxay isku qasmaan marka gubashadu dhacdo kadib. Matoorka petrolka ee cusub waxay isticmaalaan matoorada petrolka isticmaalaan irbado toos ah, duritaanka toos u sameynaya. Halka matooradii hore ay isticmaali jireen carburetor iyo isticmaali jireen. Halka matooradii hore shidaalka ay isku qasi jireen carburetor kadibna lagu shubi jiray galaasyada. Matoorka petrolka wali ku sii guda jirnaa. Isku qaska hore ee shidaalka iyo hawada waxaa sameeya carburetorka, laakiin matoorada cusub isku darka wuxuu ku dhamaystirmaa qaab koronto ah ama electronic ah oo aan la xukumin matoorka naftada ah ama dieselka ah. Intaas waxaa ka soo baxnay matoorkii ahaa petrolka. Sidoo kale matoorkan wuxuu qaadanayaa bastonku hawo iyo shidaal isku jiro qaadanaya. Waxaana hoos buu u dagaya kadib wuxuu soo cadaadinayaa shidaalkii hawada isku jiray kor u soo cadaadinaya. Matoorkan dieselka ku soo sameynaya shidaalkii cadaadis ayaana keenaya in heerkulku sacayo. Yani matoorkan naftada ah cadaadiskiisu uu ka sareeyaa cadaadiska uu sameynayo matoorka baasinka. Sidaa darteed cadaadiska uu sameynayo oo aadka u sareeya wuxuu ka qayb qaadanayaa qaraxa. Sidoo kale waxaa jirta bahayar kuleyso loo dhaho ayadana ku jirta meesha oo sameynaysa heerkulka siyaadinaysa. Marka siyaadinta heerkulkaas ayaa wuxuu sameynayaa in uu dhaco qarax iyo gubasho shidaalka gubta.
marka matoorkan naaftada ah hawada iyo shidaalku ama naaftadu waxay isku qasmadaan marka gubashadu dhacdo qarxu dhaco bay isku qasmadaan inta hore iskuma qasmadaan taas baa waxay keenaysaa guuxiisu marka matoorku inuu siyaado saacadaha shidaalku waxay cabiraan ama soo bandhigaan shidaalka ku jira salbatooyada saacadaha waxaa salbatooyada uga soo warrama dabaalatada saacadda waxaa soo gala 3 waayir oo kale ah xariga dabka fura xarig minus ah iyo xarig uga yimaada dabaalatada oo u soo qaada minus xaraarad ah casharkana maanta intaas ku ogyahay insha Allah waxaan noo ballama casharkan iyo cashar ku xiga aad baan u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.